تبسم تراني بقلبك أنا وخلي الحزن ينتهي. maxaa isbedela oo ku yimaado marka qofka uu soomo ramadaanka inta lagu guda jiro bisha ramadaan muslimiin waxay soomaan inta u dhaxayso orax soo bax iyo orax dhac si joogto ah maalin walba soonka waa hab dabiici ah oo lagu baabi'iyo sunta jirka gudihiisa taas oo keenayso in dib loo dayactiro unugyada jirka taas oo ku imaan karta oo kaliya habraaca saxda ah ee raashin cunista iyadoo aan lagu xadgudbaynin haddaba ku dadaal inaad iska ilaaliso raashinada shiilan iyo raashinada jilicsan maadaama aynu haysano waqti kooban oo aan wax cuni karno cabi karno waxa kale oo muhiim ah inaan ku xisaabtano raashinka aan cunayno iyo xadiga mar walba ku dadaal inaad biyo badan cabto kana ilaali kafeega si aad u dhowrto badqabka jirkaaga kafeega waxa uu keenaa oon fara badan xilliga aad sooman tahay waxaana ugu horeeya qaxwada sida aan ognahayba ramadaanka waa xilli mashquul badan haddaba waa inaan yareynaa waqtiga hurdadeena ugu faa'iideysano cibaadada iyo waqtiga suuban balse waa inaan ugu yaraan 6 saac siinaa hurdada maalin walba haddii aadan helin ugu yaraan 6 saac oo hurdo ah waxaad ka caajisi kartaa salaadaadii iyo waqtiga quraanka akhri lahayd sidaasoo ah hadafka ugu weyn aan leenahay bisha ramadaan sidoo kale waa inaan maskaxda ku haynaa hurdada badan inay keeni karto caajis iyo tusaar la'aan haddaba waa inaad dhexdhexaysataa haddaba iga hooya waxyaabaha ku dhaco jirka xilliga uu qofka sooman yahay inta lagu guda jiro 30 maalmood ee bisha ramadaan marxaladda koowaad inta lagu guda jiro dhowrka maalmood ee ugu horeeya ee soonka iyo cadaadis dhiig labadaba hoos ayuu dhacaa wuxuu bilaabaa shaqo isnadiifin ah taasoo qaadato waqti adag xilliyada ugu horeyso badan waxa uu heliyo ama la socdo madax xanuun tabar darro labo iyo baahi daran marxaladda labaad inta lagu guda jiro marxaladda labaad jirka bini'aadamku wuxuu si toos ula qabsadaa jadwalkii soonka xarunta dheefshiidka waxay bilowdaa inay nasato xarunta dheefshiidka waxay u isticmaashaa enerjigeeda iyo tamarteeda inay ku nadiifiso jirka kuna dayactirto unugyadeeda gaar ah waxa aad u shaqayn doono unugyada cascas inta lagu guda jiro xaaladan ama marxaladan xubnaha jirka waxay sameyn doonaan dib u dayactir marxaladda saddexaad marxaladan waxaa la kordhin doonaa tamarta qofka maskaxda waxay bilaabaysaa in ay wax walba taxliiliso waxaad bilaabaysaa inaad caafimaad badan dareento xilliga soonka iyadoo ay sii socoto hawsha dayactirka jirka haddaba waxaa la bedelaa unugyadii dhaawacmay marxaladan marka la marayo marka la joogo marxaladan xiidmaha kilida beerka sanbabka iyo jirka dhammaan waxay baabi'inayaan suntii ku jirtay marxaladda afaraad inta lagu guda jiro 10 ugu dambeysay ee ramadaanka jirka wuxuu si toos ula qabsanayaa soonka iyo afxirnaanta jirka wuxuu helayaa energy aad u fara badan waxa kor u kacayo digaaga iyo fahamkaaga marxaladan ugu dambayso xubnaha jirka waxay dhameystirayaan nadiifintii iyo hagaajintii waxaan laga taqlusayaa wixii sun ah oo ku soo galay jirka wuxuu awood u yeelanayaa inuu ku shaqeeyo awood ugu sareyso haddaba waxaa jiro waxyaabo jir ahaan ku anfacayo ee ku jiro soonka ma ahan oo kaliya mid la xiriirto arrimo diimeed oo kaliya balse saameyn weyn ayuu ku leeyahay caafimaadka haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe saar si aad noogu soo biirto haddii uu ku cajab geliyay muuqaalka fadlan like saar si aad u hesho muuqaalo kuwan oo kale oo badan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena